Sawirro sabab u noqday dadkii laga qaaday inay isbedesho noloshooda. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe channelkan si aad u hesho macluumaad badan. Wiilkan waxa uu dhashay dalka Suudaan. Waxaa sawirro laga qaaday isaga oo ka tiinadaysan oo askari dhinacyo joogaan kadib markii uu sameeyay saacad oo ay macallimiintiisana u maleeyeen in uu isku xirxirayo bam ama waxyaabaha qarxa. Sidaa ayaana xabsiga lagu dhigay. Baaritaan kadib waxaa la ogaaday waxaas inaysan bam ahayn. Darbadiiba waxaa martiqaad u fidiyay madaxweynihii Mareykanka Obama iyo sidoo kale aasaasaha Facebook Mark Zuckerberg iyo sidoo kale shirkado dhowr ah. Waxaana loo ballan qaaday waxbarasho free ah iyo wax kasta oo uu u baahan yahay in la siinayo. Abuukar Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada waxbaratay ee ku nool Muqdisho. 2 sano oo uu shaqaalaan ahaa waxa uu ku fikiray inuu boor ku dhagsado laamiga bartankiisa si uu shaqo ugu raadsado. Sawirkaas oo baraha bulshada ku faafay awgeed, waxaa saacado kadib uu helay shaqo oo waxaa la soo xiriiray shirkado fara badan. Cabdulxaliim waxa uu ka soo jeedaa dalka Suuriya. Qalimo ayuu ku dhex iibinayay wadooyinka Beirut isaga oo gabadhiisa xambaarsan. Sawirro laga qaaday ayaa sabab u noqotay inay noloshiisa isbedesho kadib markii baraha bulshada aad loogu faafiyay. Waxaana loo soo aruuriyay lacag dhan $191,000 4 maalin gudaheed. Arshad Khan waxa uu ka shaqaynayay maqaayad ku taala dalka Pakistan. Kadib waxaa aragtay gabar kaamirmaanad ah isaga oo shaah iibinaya. Indhihiisa soo jiidashada leh ayaa aad u cajab geliyay. Sawirro ayayna ka qaaday waxa ay soo dhigtay barteeda Instagram-ka. Hadda waxa uu ka mid yahay dadka caanka ah ee dharka xayeysiiya. Fidengo Sanchez ninkan waayeelka ah waxa uu haystay shaqo yar. Kadib waxaa sawirro ka qaaday nin ka soo jeeda dalka Mexico markii uu arkay sida uu u shaqaynayo isaga oo da'dan jira. Facebook-giisa ayuu soo dhigay, dad badan ayaa share gareeyay. Waxaana loo soo aruuriyay lacag aad u badan oo gaaraysa $384,000.